bal aynu ka hadalno barnaamijka aynu ugu magac darnay ee magaciisa la yidhaahdo xasuusaha sita murugta ee kommentiyada dadka. maanta waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybtiisi labaad heystii uu qaaday la foole ee la yidhaahdo roon. heysta roon waxaanu ka soo xulanay 18 commenti innaga oo laba qayb u kala bixin doono, balse aynu ka hormarnay heysta kadibna waxaynu falanqaynaynaa kommentiyada. nabarta aragda iyo unugyada dhiigga jirka labdabarta aragda iyo unugyada dhiigga jirka laxadka intiisa kale adimaadi celinaya laxadka intiisa kale adimaadi celinaya jacaylkii waya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waya arag astaantii lagu xusay ubuxda beerkii wadnaha ardaa masallaha dhigto keliga kugu aaminin codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan. aynu ku bilaawno commentigeena kuwaad daawadayaal. waa gabar magaceeda waxaa la yidhaahdaa amal cawaale, waana 2 sano ka hor. waxaana leedahay xasuusta wallaahi heysta buug iyo qalin baan u soo qaatay si aan u qaybiyo, yacni si aan u xubtiyo darteeda ah anoo yar 2003 ma ilooba heystaan heesahan ugu jeclahay meesha ay ka baxayso waan istaagi jiray YouTube iyo waxaana ma jirin ma favorite song. commentigana labaad walaalka magaciisa waxaa ugu qoran ugaaska official, waa 2 sano ka hor. wuxuu leeyahay xusuus wallaahi 2001 anigoo 6 jira alla waqtiga muxuu ordayaa, dabcan waqtiguu ordayaa walaal. commentigeena saddexaad walaalka magaciisa waxaa la yidhaahdaa abruumin muwa cabdullaahi. wuxuu leeyahay waa 3 sano ka hor la foole wallaahi xasuusta heystaan anoo 5 jira burco one love somaliland. commentigeena afraad wuxuu noqonayaa waa gabar, waxayna soo qortay commentigan 3 sano ka hor. waxay leedahay way xasuus wallaahi anoo yar ayaan heystaa darteed sas ugu dhacay, yacni sas ugu dhacay anoo ordaayo gurigayga oo ay ka baxayso oo ay habaryarahay iyo hooyaday dhar ku maydhayaan ama dhar ay ku dhaqaayaan anna bannaanka aan ku ciyaarayo. dabcan waa heesa saameynta gabadha ku leh oo ay ku xasuusanayso qoyskeeda iyo sida gurigeeda iyo ay u yaaleen iyo faamiligeeda iyo farxadda xilligaa ay haysatay. waxaana waajiba marka aad shay xasuusanayso inuu kaa fog yahay ama inaadan haysanba oo gacantaada ku jira. commentigeena shanaad waa wiil magaciisa waxaa la yidhahdaa cusmaan maxamuud, waa sanad ka hor. wuxuuna leeyahay heystan 2 xasuus way igu leedahay. tan koowaad waxaa ahayd anigoo yar oo dhigta dugsiga sheekh ibraahim burco 2005 anoo galaaska afraad ah ayaan ku qori jiray warqadaha ayadoo wax macno weyn ii samaynin markaas, balse 2017 dhammaadkiisii jawharadii aan iska lumiyey ayaan u qaadi jiray habeen walba. markastoo aan xasuusto waxaa indhahayga ku soo istaagi jiray ilin. waa la yaabi anaa huba nin weyn oo ilin qabatay, balse waa macquul marka aad ruux ku xirto noloshaada. waa macquul indhahaagu ilin way ku soo istaagaysaa, waana markii shakhsi adiga daacada aad u tahay aan naftaada u hibayso, weliba qofkaas adigana meel aada ku sheegin. bal aynu ku yara nasanno kaalimaha suugaanta. asaaskii urubdhigiyo aqalka tiire isu hayay asaaskii urubdhigiyo aqalka tiire isu hayay siday wiilu ilmaheed egmada ugula xabsataa uurkuu nugu seexato codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan. maxamed xirsi 3 sano ka hor ayuu commentigan soo qoray, waana commentigii 6aad.
wuxuuna leeyahay wow wallahi heestan xasuus ayay igu leedahay when I was 10 years old ayaa igu dambeysay sorry wallahi walaaladay iyo ehelkay goormaa igu dambeysay insha allah dalka waan imaan 2017 dabcan walaalkan waxaan u rajeynaynaa ehelkii asxaabtii u hiloobay inuu xilligan la kulmay waana salaamayna hadduu nool yahay walaalkan commentiga toddobaad waxaa noqday waa gabar waxaana magaceeda ku qoran qadra 3 sano ka hor waxayna leedahay xusuus ayay ii tahay anoo yar ayaan markii ay dhagaysanayaan dadka iga waaweyn ee dhallinyarada ahaa waagaas ayay soo baxday aan dhegtana ka jeclaa maantana waa adduunyo dabcan maanta waa adduunyo xilligaas aaday u yareed commentigeena 8aad dalmar samater 6 sano ka hor wuxuu leeyahay heestan xasuus gaara bay igu leedahay aniga sababtoo ah xilliga ay soo baxday waxa iyadoo qoraal ah waxaa ii soo dirtay gabadhan aad hadda qiimo weyn u hayo thanks big fanaan maxamed xasan xuseen dabcan waa fanaanka la foolay commentigeena ugu dambeeya aynu kusoo gabagabeynayna barnaamijka qaybtii koowaad ee heestan ee uu la foolo u qaaday walaalka magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdurasaaq faarax 3 sano ka hor maasha allah wallaahi waan weynaaday iskuma haysan heestan wax badan ayay i xasuusisay taariikh lama qoro iyada ayaa isqorta dabcan taariikhda lama qoro iyada ayaa isqorta barnaamij midkan lamida intaynu ku kulmi doono daawadayaal sida ay nabadgelya waxaanu kusoo gabagabeynaynaa heestii marwaanyare markadoon laha caday socka kadibicdiisa keenay darta ciidda dhaqaaqday dhammaan dunida iftiinta markadoon laha caday socka kadibicdiisa keenay darta ciidda dhaqaaqday way dhammaan dunida iftiinta